Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Rajadii Fanka. Saaxiibada kusoo biiray channelka Rajadii Fanka aad bay u mahadsan yihiin. Halkan mar waliba waxaad kala socon doontaan arrimaha fanka, fanaaniinta, abwaanada iyo sidoo kale majaajilaystayaasha oo aan arrimahooda halkan si dhow idinkugu soo gudbin doono haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Sidoo kale halkan waxaad kala socon doontaan mar waliba xaaladda iyo marxaladda markaasi taagan, annagoo jecel in saaxiibada nagu xiran ay noqdaan kuwa update ah, mar walbana la socda xaaladaha markaasi taagan iyo marxalad walba oo xilligaasi jirta. Sidoo kale saaxiibayaal waxaanu jecelnahay halkan mar walba inaan idinkugu soo bandhigno waxyaabaha dadku ay isla dhex marayaan baraha bulshada, maxaa karoona maxaa ka jira. Arrimahaas iyo arrimaha fanaaniinta ayaanu halkan mar walba idinkugu soo gudbin doonaa. Caawa haddii Ilaahay idinka dhigo waxaan idin wadaa muuqaal cusub. Muuqaalkaasi oo aan kaga hadli doono qisada dhabta ah ee heesta saacadihi aynu soo dhafnay soo baxday ee Gob iyo Nasab. Heestaasi oo uu soo qaaday fanaanka Dayaxda Nuurshe. Qisada dhabta ah ee heestaas ayaan muuqaalkan kaga hadli doonaa. Haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee channelka, fadlan muuqaalka like saar waayo anaga dhiirigeli ayay inoo tahay. Sidoo kale channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aynu halkan soo gelino. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Heestan fanaanka Dayaxda Nuurshe uu soo qaaday ayaa waxa ay tahay hees ay wada sugayeen dhammaanba dadka taageerada u ah fanaankani, iyadoo heestan maalmihii aynu soo dhaafnay uu fanaanka Dayaxda Nuurshe xayeysiin ahaanteeda ama hordhaceeda uu ka sii daayay baraha uu ku leeyahay social media. Heestan ayaa waxa ay tahay hees dhammaan ay wada hanqaltaagayeen dadka taageerada u ah fanaanka Dayaxda Nuurshe iyo sidoo kale kuwa xiiseeya heesaha uu soo saaro fanaankani Dayaxda Nuurshe. Heestani ayaa waxa ay soo baxday saacado ka hor, waxa ayna taallaa barta YouTube-ka ee fanaanka ilaa ku dhowaad 5 saacadood. Dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay heestan saacadaha taalla barta YouTube-ka ee fanaanka, iyadoo heestani ay noqonayso midii ugu horreysay ee muuqaal nooceeda ah ee uu fanaanku soo geliyo bartiisa YouTube. Heestan ayaa muuqaalkeeda iyo erayadeeduba waxay yihiin kuwo inaba aan caadi ahayn, soona jiidanaya dadka taageerada u ah fanaanka iyo kuwaan u ahaynba. qalbiga wehelkii wanaaga faray wadada jannada ee wadnaha aaday waagii baryay waxnaanta sidaa qalbiga wehelkii wanaaga faray wadada jannada ee wadnaha aaday waagii baryay waxnaanta sidaa wixii ku dhibaawad ilaago adaawal baarka waabine adka wacadko ka dhowr wiirsiga wixii ku dhibaawad ilaago adaawal baarka waabine adka wacadko ka dhowr wiirsiga Yayaa qalbiga wehelkii wanaaga faray wadada jannada ee wadnaha aaday waagii ii baryay wacnaanta sidaa. Axsan erayadan ayaa waxa ay noqonayaan kuwo aad ay isugu adeegsadaan mucaashaqiinta meel walbo ay ku nool yihiin. Heestan fanaanku uu soo saaray ayaa muuqaalkeeda iyo dhisaankeedaba in muddo ah laga soo shaqaynayay. Heestan ayaa waxa ay noqonaysaa mid ka gadanta amaba siyaabo kala duwan ay isugu adeegsadaan mucaashaqiintu meel walba ay ku nool yihiin. Erayada heestan ayaa waxa ay yihiin kuwo saameyn ku leh fanaanka. Qisada dhabta ah ee heestanina waxa ay tahay mid ku socota fanaanka oo isaga noloshiisa saameyn ku leh.